dhammaan bulshaweynta ka soo qayb gashay munaasabadan qaaliga caawa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaanka bacdi waa habeen runtii ku weyn geyiga Soomaaliya. habeenkaas taariikhiga ah oo ah 60 guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobollada koonfure iyo midowgii ama israacii labadii gobol waqooyi iyo koonfur ka soo wareegtay. anigoo ku hadlaya magacayga, magaca xukuumadda Galmudug, magaca shacabweynaha reer Galmudug, waxaan leeyahay meel la joogaba hambaliyo hambaliyo hambaliyo. runtii waa habeen qof kasta oo Soomaaliya meel uu joogaba ku leh xasuus gaar ah ka turjumaya sharafteenna iyo karaamadeenna haddaan nahay Soomaali. waa habeen taariikhi ah. dhallinyaro Soomaaliyeed, gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed ay u soo halgameen xornimada iyo sharafka aan harsanayno caawa. waxaan leenahay intii u soo halgantay, intii dhimatay, Allah u naxariisto. waa u dhinteen, waa u dhaawacmeen, waa loo xiray, waa loo dhibay. intaas intii ka dhimatay Ilaahay naxariistiisaan u baryaynaa. inta noolna waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sharaftii iyo karaamadii iyo xornimadii ummadda Soomaaliyeed qaybta ka soo qaateen. waxay tahay sababta habeenkan loogu soo celceliyo inay ummadda Soomaaliyeed kala dhaxasho taariikhda dahabka ah ee soo martay ama ay ku heleen sharaftooda iyo karaamadooda, oo jiilalku kala dhaxlaan, oo ay la socdaan taariikhdooda iyo xornimadooda iyo qiimaha ay leedahay. dadka reer Galmudug xornimadoonka iyo taariikhdaas Soomaali looga qaaday gumaystihii oo lagu xoroobay waxay kaga jireen safka hore. waxaana reer Galmudug ka soo jeeda geesiyaal taariikh aan duugoobayn ku leh Soomaaliya oo aan qof Soomaali ilaawo karima ka soo jeeda. sidaa darteed reer Galmudug midnimada, wadajirka iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed xil gaara ka saaran. waxaan rabnaa inuu xilkaasi ka muuqdo, waaba ka muuqdaaye. anigoo uga faa'iidaysanaya fursaddan, dadka reer Galmudug sida ay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo sharafkeedu u dhowran yahay ama ay tahay in loo ilaaliyo, horta iyagaa muujiyey oo midnimadooda iyo wadajirkooda reer Galmudug muujiyey. iyadoo marar badan la isweydiinayo Galmudug waxaa ka jira wax unsi ka yihiin oo kala qaybsanaan baa ka jirta. dhinac walba Galmudug waa ka madowday. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inaan haddana u taagannahay midnimadii iyo sharafkii 60kii 1dii Luulyo Soomaaliya heshay. wixii soo gaaray oo kala qaybsanaan ama kala tabasho ah, haddaan nahay reer Galmudug waxaan ka qaadanaynaa qayb libaax. sidaan shalayba xornimada iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed ugu horreynay, haddana waxaan ugu hormaraynaa annagoo teenna xallisannay inaan tan kalena u hormarno insha Allah.
sidoo kale waxaan rabnaa inaan ugu hormarno ummadda Soomaaliyeed iska xoreynta cadowga argagixisada ummadda Soomaaliyeed ku salladan kuwa ugu horeeya ee iska fujiyaan noqono anagu Soomaalina aan tusaale ugu noqono sidaan tusaaleba u ahaa jirnay sidoo kale waxaan rabnaa wixii midnimada iyo sharafka 60 sano la ka soo wareegatay dhaawacaya oo jira oo Soomaali dhexdeeda ka jira waxaan leenahay midnima sharaf noole midnima aan ku sharafownay aan midowno wixii tabashaan xalisano walaalo Soomaaliyeed ayaa midnimada iyada wax ka qaba kuwa dhexdooda wax ka jiraan wali dhammaan waxaan leenahay gacanta ugu haboon iyo gogosha ugu haboon ayaan dana reer Galmudug ka qayb galaynaa aan midowno reer Galmudugna waa ku celinayaa waxaan leeyahay kaalintiinii hormuudnimo kaalintiinii firfircooneed kaalintiinii Soomaali dhexdeeda ka tilmaanaydeen midnimada iyo wadajirka iyo isu soo noqoshada iyo dhamaynta khilaafaadka jira oo dhan hormuud u noqdo insha Allah mar labaad waxaan leenahay munaasabada weyn ee caaway aan joogno oo ummadda Soomaaliyeed baal dahab ugu jirta way isugu hambalyeeynaa waana isku dhiirigelinaynaa inaan xusno oo ku xusno taariikh sax ah halgamayaashii u soo dhintay xornimadaas aan harsanayno inaan ku xusno midnimo iyo sharaf Soomaali ay leedahay taas wax u gashay hambalyan leenahay habeenka weyn reer Galmudugna waxaan leenahay u horeeya hawlihii iyo taariikhdii lama ilaawaanka ahayd habeenkan ku fadhiyo insha Allah salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh